anigu waxaan ka soo jeedaa Hargeysa Hargeysaan ku dhashay Hargeysaan ku koray Hargeysaan wax ku bartay aragtida midnimada iyo kala taga waa fikir dadka Soomaaliland ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin laakiin fikirkaasi oo 30 sanadood soo ugu dambeeyay ku dhawaad ilaa 19 laga bilaabo aragti dadna qabaan dadka qaarkiina ay qabaan hadii si adeeli weydo maxaa si kala oo ayuu abwaankii lahaa oo waacayna abxa lagu dayi karaa oo kale war 30 sanadood miyaan meeshu u taagnaanayna waa mar Ramadan dunidu hal dal bay aqoonsan tahay halka dal oo baasaboorkiisa aynu ku safarno oo shahaadooyinkiisa tasdiiqintooda aynu ku socono oo haday tahay waxbarasho dibadeed kaliya lagu tagi karaa ay ka tahay marka in dalkii waa la wada yahay hadii la wada jirayna lagu wada jiro sifo sharci iyo dastuuri ku dhisan oo la wada hadlo qofka aragtida qabaana uu ogolaado qofka aragtida ka soo horjeeda qaba ee ka duwan in uu dood furo oo xiwaar furo oo yiraahdo walaalayaalow haduu taagan yahay tani in la dhiqi mayso kumana sii socon karno 30 sanaan marayna maxaa xal ah haddaad adigu qabto maya waa kala tagaynaa walaalkaana qabo maya waa wada jiraynaa waa in la furo xiwaar iyo dood si maxaa lagu sii wada jiray waa inaan abuurin un falsafo ama rajo ama aynaan dadka yool iyo tilmaan u bixinin ceel guntiisa aanu sayax ka muuqanin sidee baa lagu gaari karaa oo biyo looga soo saari karaa ta ay ku iman kartaa in biyo laga soo saarano waxa weeye kaliya in wada hadal dhab la wada galo la dardargeliyo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland